لا يرباك واحد والبا هدي الدولة محل كتهدان وحبيبي قبنيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي كان نقولك أحسن إنك ده واحد وأنا حلا وحبا عن حارسنين شن شرقي ما سيبوتسية مدحوينينا شرفت لو حنقول باغيا دولة الله يربا إلى ودك وده الله يربو لها مركو يمي إن أنا كتجين ودك قبل الله يرى qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa waxa ay siyaabo kala duwan uga hadleen go'aanka ay soo saareen shirkadaha leydhku ee ku saabsan in la kala jari doono marka ay saacadu gaadho 12 habeenimo bisha July marka la gaadho waana kuwan qaar ka mid ah dadka shacabka ah oo ka hadlaya dareenkooda iyo qaabka ay u saameynayso go'aanka ay soo saareen shirkadaha leydhku ay waa nigay tiri mooge horta maba ogeed dad baa habeenkii u shaqeeyaba magaalada mushkiladda daba waxay tahay leydhku waanu dabinaba shirkadu yiraahdeen soo ma horta marka hore gacanta ayaa u galiyayba waa dawladda Soomaa leerka waxa ku xiran amaankii nolosha umada ku xiran wax aliyaalo wixii wadanka quseeyo dhan baa ku xiran daanagu shirkada wadanka uma aan dawlad baa loo dhiibay xukuumadda waxaan leenahay fariimaha umada ay diin soo diraysaa haydi soo gaareen dhagaha fura ama umada kuraasida u baneeyo xilkii waanu gudan kari weynaa inta si sharaf la yeeshaan magaalada dhan ka gala ama umada wuxuu qabto wixii la diin doortay garto umada iyo shirkadu yooyatay maayaan maxaan anagu shirkad dadku waxay leeyihiin shirkada waxaan u baaqan in la naxariisto waaran waxa la waxba aan naxariisanin shan jeer qiimaha sii boodsiya anaga shirkada maxaa naga dhaxeeya xukuumad baa noo dhaxaysa shirkadu waa ganacsato qofka ganacsadayna dantiisu u raaca in been la isu sheega ma hukumad hadalka laga beerbeero xukuumaddu shirkadaha iyo ganacsatada labadaba talaabo ka qaado hadii ka warka cad sheegto tiraada wax alle waxaan qaban karnaa ma jirtee wadanka cashuurta waanu guraynaa dadkuna sidooda hayso maamulaan wabillahi tawfiiq horta arrintaas waa arrin walaaceeda leh caasimadda iyo dhammaan bulshada Soomaaliland inta badan baahi badan baa u qabtaa leerka iyo biyaha marka waxyaabo badan oo shaqeeya jiro oo aan ka maarmi karayn arrimahaas oo dhan leerka waxa uu sababa kicitaanka shidaalka halka culayska laga saarayo leerka iyagana dhaliishooda leh oo iyaguna intay ku dari lahaayeen in ka badan ku daraya in haddana marka hore xagga hore laga soo qabto oo shidaalka kaalmaha wax laga qabto waxaan moodaa inuu qol kastaaba iska oranayso waxay doonto shidaalka maanta yaalla kacaya waa kii jabnaa ee hore u soo iibsadeen in lagu xisaabtamo loo baahan yahay maxaa ku kacay shidaalka soo socda iman doona ilaa meesha hashaba laga arkaa caalamka meel buu ku wada fadhiya maxaa ku kordhi kara halkii litir maxaa fuuli kara fastani maxaa ku kordhi kara inay intay shiraan go'aan iska soo saaran ilaana 20 kuman ku darnay 10 litir wax qarankan qaadi kara maaha sayninkaysa sulub waxna ay bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa leerku dhibaato badan buu nagu hayaa imika markii hore leerku in kastaba qof kasta ku soo gaaray leerka waa la wada helayay laakiin imika digniino badan bisha 8 aan leer helaynin waqtiyada qaar go'ayo ayaa imika soo foolay marka waxaan ka codsanaynaa dawladda ilayaga awoodi gacanta ku hayee oo midda deebkeedii hayee leerka dadka meel leer uga raadiyaan ama iyagu mishiin ha keensadaan ama solar ha keensadaan waxaan ku baaqayaa dawladda madaxweynaha sharafta loo waxaan ugu baaqayaa dawladdu leer bay lahayd wadanku leer buu lahaa markuu yimi in aanu ka tagin wadanka bilaa leer ah wixii loo saameynaya waxa weeyaan dhibaato badan lagu keenaya tuugta xitaa nooga faa'iideysanaysa waxa weeyaan magaalada way wada shidnay dad baa jira habeenkii shaqaysta dad baa jira maxay tahay waxbarasho u baxa hooyooyinka habeenkii soo guuri galaya imanaya suuqa luqyada madow lagu dilaya dadka xilliga dambe soo waxay luqyada madow lagu dilaya hatta leerku markuu shiday dee tuugtu ma ku soo dhiirato laakiin marka leerkii aanu jirin dee tuugii cid walba way ka faa'iideysanaysaa magaalada wada madoobaanaysa marka taas saameyn ballaaran bay ku keenaysaa bulshada waxa weeye xukuumaddu waxay ku wareejisay shirkadaha leerka mashiinada bay ku wareejisay qalabkii baa lagu wareejiyay birihii baa lagu wareejiyay dhulka cashuur lagama qaado biraha caalamka shirkadaha leerka waxa dawladdu cashuur ka qaadaa biraha dhulka ku taagan iyo cashuur laga qaadaa qalabkii oo dhammaystiran bay dawladdu ku wareejisay solarkii hay'adaha caalamku ina siiyeen baa lagu wareejiyay warshadii baa lagu wareejiyay waxaan leeyahay shirkadaha leerka dawladda gacanteedii ha ku celiso waayo waxa loo cashuur laga qaadaa ma jiro dadku way dulman yihiin birta dhulka lagu taagay caalamka waxa laga qaadaa Itoobiya cashuur Soomaad garan waxaan leeyahay sixir bararka horta caalamka oo dhan buu saameeyay laakiin anigu waxaan leeyahay shirkadaha dawladdu gacanteedii ha ku celiso bashiinada shirkadu aniga waxa la Sikriya Xaaji Maxamed Idris waxa weeyaan sixir barar baa nawaalay oo naftii noo keenay dadkii beerkay u jiifaan dawladda waxaan leenahay sixir bararkan ka hadal oo waxaan ilka lagu kacay naga jabi shidaal baa kacay bariis baa kacay waa biyaa kacay wax aan kicin ma jirto leer baa kacay wax walba hadii dawlad maxal ka tahdaan waxba qabanaynin
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhiiggaa nagu kacsan naga daa waxa faarax cabdi cali bada home cable t v aad baan idinka mahad celinayaa gaar ahaan barnaamijkan laydhka ee waxa weeyaan su-aashayga weydiisan si kooban haddaan uga hadlo laydhku waxaynu ognahay inay nolosha aadamigu maanta ama nolosha aynu ku noqonayno tiimiyigee hore haddii maanta laydhka la waayo khatarna ay ku tahay qoys kastana ay taabanayso madax iyo manjaba haddaynu muhiimaddiisa sidaa u ognahay xukuumadda iyo brayfat boorta gacanta ugu jira sida runtii ah haddana xukuumaddii dabcan waxay ku leedahay mas-uuliyad arrinku wuxuu muuqdaa arrin aan weli halkiisii la taabanin xukuumadda waxaynu leenahay wax allaalo wax kasta oo keenaya shidaalka in la fududeeyo ilaa shidaalkii mishiin baa isaarmayada arrinka noqday oo qaali bay keeneen sabab bay keeneen xukuumaddu waa inay la timaado inay cashuurta tootaliba meesha ka saarto shirkadahana waxaynu leenahay iyagana waxbaanu daminaynaa kelmaddaasi waa khatar runtii waxa weeyaan laydhka biyaha waxyaabaha waxa mas-uulka ahayd xukuumadda sidaa aawadeed mar haddii idinku maanta qabanaysaan oo aanay xukuumadda adeeggeeda qabanaysaanba waxaannu idin leenahay waxaasaannu samaynaynaa ka daayo stakeholderska xukuumadda iyo bulshada ay khusayso ee boodhkaay ha laysu yimaado ha laysla eego meel ha la dhigo yaan dadkana lagu ciyaarin imika habeen dhawood shirkada leerku waxay soo saareen in ay leerkii dibi doonaan 11 habeenimo oo ah hadda xaalad aad u xun marka dhinac la eego dhakhtarada dad bukaana emergency ku jira oo ay ku socdaan maxaa ahaydeen faleembooyin oo leer la'aantooda aanan maxaa ahaydeen isticmaali karin taasi waxay noqonaysaa markaa in waddanku dib u socdo oo xaaladda waddanku dib u noqday bilowna laga soo bilaabayo haddaan ka hadlo shidaalkan shirkadaha leerka ee harmaleer ku saabsan horta waxaan aad iyo aad uga xunahay in la yidhaha leerka la baktiraya anwaabay ka dhoweyd markaan qoraalkii arkay shirkaduhu soo saareen dee horta anuu waxaan ahay dadka inta badan baraha bulshada wax ku qora waxaan ahay dadka inta badan telefoonada isticmaala mar walba dabka kula jira markaan la yidhi shirkadihii leerka ay baktirayaan dee qaawabay igu noqon weyday waa xukuumaddu waxay mas-uul ka tahay adeegyada oo dhan marka runta laga hadlo shirkadu waa loo dhiibta adeegga waa u shaqeeyaan dadka oo bulshadeenna u shaqeeya waa muwaadiniin dalku leeyahay marka xukuumadda waxaan leeyahay wax kasta oo fududaynaya arrimaha shidaalka amba hawlaha elektrooniga in ay mar walba ay xukuumaddu ay fudaydiso hadday tahay cashuur hadday tahay arrimo kale waddooyinka loo mar ah talabaadna waxaan leeyahay shirkadaha leerka bixiya xaq uma laha in horta leer damiyaan sababtoo ah waxaan u sheegaya waxa weeye waxaan xaq ugu lahayn muwaadiniin baa u dhiibtay karantooyinka waa loo dhiibtay laakiin go'aan iyagu qaatayna waanu jaraynaa waanu baktirina idhahaan dee wax suurtagelaysa maaha marka waxaan leeyahay shirkadaha waa dadka waa dadkiinnii qaranku waa qarankiinnii ummaddu waa ummaddiinnii intaa u naxariista kitay u naxariista asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu axmed shimaali home cable t v hargeysa